شاكر نفسه قرش وقال سلمان محمد وهمسين حمد كيلها ما قرني ست محمد وها يركب ما أقول أنا ما قرنا ضد بدنا يسوي أهل كينا محمد أنا قرنا يا وقت لقانا محمد أنا كنا نكوين ها هو هميا ها أو مريك سواعي محمد سنة الله محمد صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عاوة إلها ما هاد سكالة فائزو ورنتي قبر صوماليا دا ديب لو جيستي عاوة اسبتالكي أينا اللي جوكتا وقت بدن سوغيني الحمد لله سورق اللي أيضا يهويدي أبهيدا إني اسطنبول أين لا سو غاران أما اسطنبول يمادان أختركي أن كناي الحمد لله حالدي و baaritaan badan ay mari doontaa kadibna wixii shaqo markaas laga qabanayo dhaqaatiirta ayaa sheegi doona inkastoo maantu ay tahay beri tahay axad faizo iyo inay arrintan ay suura gashaan waxaan aad uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka banaadir faizay gowrac caafimaadkaaga caawo waa fiicna hay maasha allah farxad badan baa dareemay farxada dareemaysaa ka waran safarkii muqdisho iyo istanbul aad soo gashay safar dheer buu ahaa hay alxamdulilah wuu nabad keenay qaabka lagu soo dhaweeyay iyo qaabka lagu soo ambabixiyay ee maamulka gobolka banaadir ee shaqadan ay ku qabteen iyo Soomaalida ku dhaqan Istanbul sidii ku soo dhaweeyeen ka waran alxamdulilah waxaan kuma aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xagaana aad iyo aad baa laga soo markaan soo tagayay la isoo ambabixiyay gudoomiyaha iyo maamulka gobolka Istanbul aad iyo aad baa lagu soo dhaweeyay dhalinyaro odayaal waxa walba aad bay igu soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay ka war qabow markaa soo gashay magaalada qabow ma aragtay qabow saayid waa arkay hay maxaad dareentay kuleelka waa ka soo tagtay kuleelka waa ka soo tagay markaa diyaaradda markaa saab degtay baa arkayba daaqadeeda wada baraf hay markaa ka soo degtayna aniga dhanaa baraf baa noqday kuleelkii xamar wax ka baxay waa gartay okay hadda dhakhtar jirtaa dhakhtarka waa ku kontrolay isbitaal jirtaa kalsoonida ka war hadda maxaad dareemaysaa kalsooni buuxda dareemaysaa hay cabsi iyo wixii waa dhamaadeen marka in aad caafimaadkaaga ummadda Soomaaliyeed inay ku soo duceeyaan ayaa rajaynaysaa dhibaatada ku soo gaartay shacabka Soomaaliyeed aad ay uga danqadeen dhibka lagu geystay way ka xumaadeen shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ninka dhibkan ku geystay mis garanayseen may hay isma garanaynin miya sheekadaas bal wax iga sheeg markaas xagee joogtay adiga boosaas joogtay okay xaafadda ka degneed laanta hawada ka waran marka ninkan asaga shacab mu ahaa mise wuxuu ahaa askari dowladda Puntland ka tirsan si isku barateen marka waxaan isku baranay lambarkiisa gabadha saxibana iga soo wacday hay kabacdi sidii buu igu soo raacay gabadha oo asaga siqanaan oo adigana saaxiibatiin annaga saaxiibayn isaga jeel bay isku raxna lambarkii ka qaadatay ma is aqoon hay'ad lambarkaaga igu caawi gabadha ka wacanaya markii soo wacday gabadhii soo wacday isagii lambarkii sidii buu safarastay gabadhii waa la sii daayay galabkii isna subaxii waa la sii daayay sidii igu soo wici jiray waa gartay marka muddo bilowda had jiraan wajigiisa arag habeenkii dambe ayaan la kulmay hay xagee ku kulanteen ma banaanka mise guriga hay maxaa dhacay guriga igu yimi hay gaariga soo gal buu dhahay hadda ma gelayo xudhan mayd qadar baan taagnaanaa horay buu gaari ka dhaqaajiyay gaariga adigoo saaran dhaqaajiyay adiga raalli kama ahayn waa ta xoog buu waday xooggeeyay meeshan la maxjarka صح maxjarka boosaaso oo magaalada banaankeeda haye gaaskii ma istagaalay inta baan istagaalanay intuu gaarigu soo isdagaalaysan may maxaa markuu gaarigu uu kaxeynayay adiga markaa caadi Soomaaliya markuu gaariga kaxeynay waa u jeeday haye laakiin xawli buu waday waa gartay magaalada buu daqiiqad ka saaray haye daqiiqad ka saaray uu istaajiyay baskooladii ugu qaftay biskoolada watay mise qori waa baskoolad buu watay haye
marka mas'uuladii waa soo gacanta iska qabtay mas'uuladii marka in badan istagaaranay ku weydii wuxuu ka rabo mas'uulada uu soo qabtay ee kufsid buu soo qaatay mas'uulad hay caadi kugu sheegay waa ku doonayeen ku yiri khasab iska dhib ku dhax haye anagoo la dagaalamay aan in badan dagaalamayay wuxuu ugu dhuftay baskooladu kugu dhuftay haye aniga markaan dhacay si gaarigiisa ku haystay teleefankayga qaatay dharkayga qaatay ruuga tagay dharkaaga go'ayga qaatay waata iyo teleefankii marka xabadii markay yeertay oo xabadii lagu dhuftay meeshu soo dadka ma dhaweyn oo dadha uu ka dhawaa haye waxaa ii yimid dhalinyaro bay soo qaaday gaari bay dheheen gaariga qaaday cad baan u socdaa arday baan soo qaadaya mana ku qaadayo gaariga noocuu ahaa bas uu wata haa haye sidii maaha waa gaari kale kani waa gaari kale waa gartay haye kii wuu isoo qaaday meel xaafadoo dad jooga mataqaanaa oo meheradiya wax leh magaceed xaafada ma garanayo maxjirka u dhaweeyay haye meeshaas ii dhigay xudhaa dadka ilaahay u tag dadkii way wada yimaadeen waxba kuma qaban karno ilaa muddo hal saaca meesha oo lay rida waxay waceen askarta loo tagay mid askarta soo qaaday isbitaalka ay keeneen markaas aniga kooma galay isbitaalka la keenay waa gartay hooyo ma joogeen markaa ayaabiyo hooyo abdoon ma joogin hooyo xagee jirtay waxay jirtay buuhoodle jirtay aabana isna meel bay joogeen isku meel joogeen marka adiga boosaas marka maxaa u joogtay waxbarasho mise shaqaad u joogtay booso wax yar baaba joogay imise beri joogta marka dhibka markuu dhacay imise bilood meeqaa joogtay 2 bilood haye ninkan askariga adiga waxaad ii sheegtay inuu xabsiga kaasoo wacay teleefonka gabadha saaxiibta inuu kaasoo wacay gabadha saaxiibtaada hayay mis aragteen kadib ma sheekaysateen dhibka inuu kugu dhacay waxaa bala wadaagtay dawaas aragna habeenkeeda bay caawisay ayda ku caawisay haye nambarkiisa maskaxda ma ku hayn teleefonkayga ku saf garaysnaa marka iyada waxa lambarkiisa wixiisa wax walba magaciisa sax taani ma aqoon teleefon isku barateen laakiin qof aad teleefon isku barateen gaarigiisa inaad soo raacdo kalsooni intee la eg ninkan teleefon iska baratay isma garanaynin gaariga marka habeenkii sidaas ku soo raacday qadar socoteedanba in badan weliga xitaa la kulantay ma isdhihin haddana qadar la socoteed gaariga marka galayba damiirka dhanba oo laga qaaday muu sheegtay gabar walaashiisa oo kale inaad tahay uu dhibka kaa dhaafo hadalla mise dhaafsateen in badan baa iska bariyay maxaa ku tiri hadallada tiri maxaa kamid ahaa waxaan ku dhaw walaasha kale miyaan ahayn iska kaydhaa iga daa waxaan xaaraanta iska dhaaf naanaga tag budha walaashayba waxaas kale nagu sameey raalli baan uga nahay saasuu dhah ninkaas waxaa leeyahay puntland wuu ka baxsaday jubbaland uu tegay waa lasoo qabtay puntland lagu soo celiyey maxaad codsanaysaa maamulka puntland ama dowladda puntland madaxdeedii ha noqoto madaxweynaha iyo weliba ragga dadka kale maamulka meesha joogo madaxda maxaa ka codsan lahayd ninka aniga waxaan ka codsanayaa haddaan caafimaado in xaqayga laga siiyo madaxweyne hadduu wixii tariya markii aan boosasa joogay wixii tari lahaa anigu madaxweynaha puntland ajar iyo abaaltoona ma hayo se deegaankiisa ku dhaawacmay waxaana puntland iima qaban haddii aan kacana ninkaa xaqaygun baan ka rabaa oo maxkamad in la saaro sharciga la mariyo midaan baan codsanaya ka waran dareenkaaga ka waran marka dhibaatadan ay ku gaartay gabdho kale waxaa jira soomaaliyeed oo dhibaatooyin fara badan kufsi la kulmayo la dhibaateynayo ayaga maxaa u sheegi lahayd gabdhahaasi baaq noocee maxaad ugu baaqi lahayd gabdhaha soomaaliyeed maxaa u jeedi lahayd taasna waxaa ugu baaqayaa qofka marka hore shukaansanayaan qofka ha iska fiiriyeen qofkaas markay iska fiiriyaan qof wanaagsan hadduu yahay qofkaas qof wanaagsan qofkan ma wada muuqanayaan laakiin ani siday ku dhacday oo kale ayaan uga digayaa inaysan igana ugu dhicin qof aysan aqoon ama iska raacin ama la kulmin meela aan gurigood ahayn aysan kula kulmin shacabka puntland waa shacab aada u wanaagsan marka laga tago dad xun qaarkood way jiraan soomaaliya oo dhan dad wanaagsan dad xun way ku jiraan
xamara timid qaab noocee ayaa lagugu soo dhaweeyey maxaa la kulantay bal arrinta waxay laga sheegay xamar markaan nimid dadka aan familkayga ahayn oo i maqlay bay soo boqay magaalada dhan way soo wada boqatay hay marka xamar aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa markaas ma kugu horeysay xamar haa weligaaga ma tegin adigoo dhaawaca tagtay haa haye marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xamar shacabkeeda iyo dowladeeda haye tilaabada ugu horeysay maamulka gobolka banaadir aa qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid oo in gargaarkan lagu soo fidiyay la damaanad qaado adiga hooyo halkan la joogta aabo caawna sanayo oo magaalada aan u dirnay la damaanad qaado maxaa dhihi lahayd asaga gudoomiyaha iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir maxaa dhihi lahayd aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadina sii wata waan leeyahay haye dadka oo dhibaataysan saa u sii caawiya waxaan rajeynaya inaad caafimaaddo maaman doonaya iyadana lagu sugaal inaan weydiiyo oo dareenkeeda ku aadan caawo haye faa-iiso ugu dambeyntii marka hadda istanbul aad joogta insha allah dhakhtarkuna waxa weeye waa dhakhtar wanaagsan kolley caafimaadkaaga ayuu ka fikiri doonaa garabkaagan anagaa taagan soomaali oo dhan ayaa garabkaaga taagan oo turkiga jooga ha noqoto jaaliyada ha noqoto wax kala noqoto caawa qabowga dhacaya waad ujeeday barafka dhacaya waad ujeeday saas ajjigeeda banaankan ku taagnayn in xilligan oo xilli dambe ay tahayna waxa weeye waxaan u joognaa sidii had adiga caafimaad taam ah ku helayd marka waxaan rajeynaya inaad caafimaadda rajeynaya hadduu ilaahay idmo wixii kalena markaas dib ayaan shacabka soomaaliyeed aan usoo gudbin doonaa waa hagaag faa-iisay ahayd kolley wixii kaloo ribood ahana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa dhakhtarka wuxuu yidhi riboodka faa-iiso loo soo qoray ee soomaaliya iyo xaaladeeda ismaal uu yidhi farqi weyn ayaa u dhexeeya yidhi waxay u baahan tahay xaalad degdegay u baahan tahay cisbitaalkan baaritaanay mari doontaa waa laga saari doonaa cisbitaal kale ayaa loo gudbin doonaa oo arrimahan gaarka ugu takhasus waayo kiiska riboodka ku qoran marka uu la aqriyo ribood wax iska fududay ahayd laakiin xaaladdu marka la fiiriyey xaalad aad riski u ah ayay noqotay waxaa jiray tubooyin mid saxrada qaada iyo mid kale oo kaadada qaada oo meelo qaldan ayaga naftirkooda laba tubo oo laba meel ku kala jiray oo runtii si qaldan wuxuu sameynayay diyaaradda intay soo saarnayd dhibaato fara badan ay la soo kulantay oo waxyaalo badan isku darsamay dhakhtarka caawo dhan waa ay dul taagnaayeen marka waxaan rajeynaynaa maalinta berita ah in wixii kaloo warbixin ah aan idiin soo gudbino oo ama xaaladeed hadba meesha ay marayso ayaan rajeynaynaa inaan idiin soo gudbino ayaan raji doona faa-iisana waxa weeye waa gabar soomaaliyeed waa gabadheennii waa walaasheenii mar walba waxaa waajib ah inaan garab istaagno ayaa waajib ah marka shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rajeynaya inay faa-iiso usoo duceeyaan maamulka gobolka banaadir iyo dadka shaqadan geystay oo guddoomiyaha ah oo qofkii saddexaad uu keenaya ay tahay halkan caafimaad taam ah inuu ilaahay siiyo marka waxaan rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed inay usoo duceeyaan inta ka horeysana waxaan idin leenahay sidaas nabadgelyo xaaladii faa-iisa sidii hore dhakhtar lagama walwalayo caafimaadkeeda insha allah lagama walwalayo dhanka dhakhaatiirta iyo weliba barnaamijyada kale ku saabsan marka waxaan rajeynaya ilaahay caafimaad siiyo anagana waajiba nasaare shacabka turkiga guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee turkiga ku nool hadday noqon lahay jaaliyad iyo dadka kaleo dhanna waajibkooda inay gutaan aan rajeynayna inta ka horeysana waxaan idin leenahay habeen wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu